Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Idin lahaantiinba meel walba aad dunida ka joogtaan, kusoo dhawaada janalka Mideeye Media Production. Fadlan hadday tahay markii kugu horeysay aad janalkan aragto ama muuqaalkan uu kusoo gaaro, subscribe saar, gambaleelkana furo. Maanta waxaan ku hayaa qiso xanuun badan. Gabar magaceeda kusoo koobtay Nasteexo, waxayna degan tahay magaalada Addis Ababa sida ay inoo sheegtay. Sheekadu waa mid xasaasi ah. Waxay ka bilaabatay waddo dhexdeeda markii aan si kedis ah isku baranay nin da'diisu u dhaxayso qiyaas ahaan 28 ilaa 35 oo magaciisu iigu sheegay Cabdixakiim. Wuxuuna sidoo kale ii sheegay inuu dhakhtar yahay, wuxuuna igula muuqday nin akhyaar ah sida aan muuqaalkiisa ka gartay. Lambarkayga ayuu iga qaatay, kadibna si wanaagsan ayuu ii soo xiriirin jiray. Waa hubaal inaan anigu guurdoon ahaa, balse wixii guur aan ahayn ma jeclayn. Dhowr haween ayuu gurigayga igu yimid, waxaana u martiqaadi jiray si wanaagsan. Inkastoo muuqaalkiisu ahaa mid akhyaareed, haddana hadalkiisa iyo gacanta oo ka soo horeysa ayaan ahayn kuwo is leh. Wuxuuna dhowr jeer isku dayay oo uu iga codsaday inuu i dhunkado ama jirka iga taabto, taasna uma ogolaan jirin. Guurka ka hor waxaan u sheegay in guurka hortiisa arrimahaas aan oggolayn. Wuxuu ii ballan qaaday inuu i guursan doono oo noloshayda wax ka beddeli doono, maadaama ay noloshayda iska xumeyd. Waxaana niyadeyda iska idhi, haddaad heshay ninkii noloshaada wax ka beddeli lahaa. Siduu xiriirkeena u dhisnaa, hamigayguna u raacay ninkaasi, ayaa maalin wuxuu iga codsaday inaan ugu tago gurigiisa si shuruud la'aan ah. Ayaan ugu aqbalay sababtoo ah xumaan kuma aanan baran, mana is dheheen waxay niyadeydu diidan tahay ayuu sameynayaa. Horey ayuu in badan ii dhihi jiray hadallo aan u maleynayay kaftan oo dareenka qofka kicinaya, waxayna niyadeyda aqbali weysay inuu si dhab ah u sameyn doono. Hase yeeshee, sidaan filaynin iyo siday noqotay waa mid aan loo noqon doonin. Markii la gaaray xilligii ballanta, ayaa si dhaqso ah uga soo baxay guriga aan deganaa, waxaana ka fikiray sidaan ugu hagaagi lahaa gurigiisa halka uu igu tilmaamay. Gaari ayaan soo raacay, 15 daqiiqo kadibna waxaan soo gaaray halka ay tilmaamtu ahayd. Telefoon ayaan ku garaacay, waxaana u sheegay meesha aan taaganahay. Wax yar markii aan taagnaa, qiyaastii 5 daqiiqo kadib ayuu ii yimid, waxaana isu raacnay hoygiisa oo aan islahaa martiqaad wacan buu kuu sameeyay. Waxaan nimid guri si weyn loo xardhay oo quruxdiisu aad is leedahay ha ka dhex bixin. Markii aan iridka ee guriga soo dhaafay ayuu yidhi, soo dhawow qalanjo, gurigu waa gurigaaga, waxaana tahay marwadii guriga, iyo hadallo kale oo macaan ayuu igu soo dhaweeyay. Aniguna mahadsanid ayaan si dabacsan u idhi. Qol fadhi ah oo si weyn loo sharxay ayuu i keenay, wuxuuna ii shiday TV-ga oo uu ku tuuray cajalado heeso ah. Durbadiiba waxay ku bilaabatay hees aan in badan jeclahay oo aan miraheeda ka fahmay in gabar lagu ammaanayo, fanaankana maba xasuusto. Wax yar kadibna cabitaan qabow iyo cunno fudud ayaa la ii soo hoos dhigay. Ninkiina kama daalayo hadallada jilicsan ee isku dayaya inuu igu soo xirgeliyo. Aniguna waanba xishoonayaa oo hadalka lama sii wadi karo. Waan aaminay ninkaas mana lahayn wuu kugu xadgudbayaa. Cabitaankii ayaa la ii keenay, ayaan marka baday mise waan cabay oo aan aad u jeclahay cabitaankaas. Waxaan u cabay sida qof ka baqaya in laga dhammaysto. 2 daqiiqo kadib waxaan iska dareemay caajis iyo hurdo, mise waa ila tagtay hurdadii. Maba hubo intaan suuxsanaa, balse waxaan ku qiyaasayaa 40 daqiiqo. Waxaana soo toosay anigoo jiifa, qolkii jiifka oo
jiifa oo qolkii jiifka ku jira, watana dharka hurdada. Katabaanka waxaa iga muuqday dharkaygii. Aad baan u naxay, waana isdaydayay. Waxaa bac-jiradayda boodahayga ka dareemay qoyaan aad u badan iyo gudaha xubintayda taranka oo aan wax ka dareemay. Anigoo naxsan ayaa waxaa qolkii soo galay ninkii oo isna shukumaan hoosta ugu xiran yahay. Waa iga dhaadhici weysay waxaana dhacday inkastoo ay xaqiiqo tahay, haddana waan aamini waayay. Isagoo dhoola caddeynaya ayuu igu yidhi, "Gacaliso, aad baad u macaan tahay." Wuxuuna ii sheegay inuu iga duubayo fiidiyoo, mar walba u baahdana ay u imaado. Gabdhaha Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaynaa inay iska ilaaliyaan waxyaabaha qaar oo